وردت كل الطيور وزهت دنيا الحضور ثم قالت للحضور مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا أهلا وسهلا صحبة كنتم وأهلا ولنقل للجهل مهلا ذاك حفل الناجحين ذاك حفل الناجحين ألف مليون مبارك ربنا زدهم وبارك كلكم في المجد شارك نعم أجر العاملين نعم أجر العاملين وردت كل الطيور. السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. waalidiinta ardayda sheekasha madaxda السلام عليكم وسلام سيتين السلام عليكم دنا وكلا سعنا marka xeer iska dulqaata insha Allah aad u maasantiin aad u faraxsanahay maanta maaragtay xaflad diini ah oo madrasa oo maaragtay carabi ama ahadiith ama fiqh ama maaragtay islaami lagu baranayo maaragtay xaflad maanta lagu soo qabanay horta uu buuxsamay ma sha Allah kuma salaam maaragtay aad baan ugu faanaa ma sha Allah sidii hore iyo si isku dhulmatihiin bariga hore xogaa bari deyn baan mar baan ku aad u fiicnaa laakiin gadaashan xogaa qadka ka baxay laakiin waxaan u maleynaa anaga san laba hore soo galnay xogaa waxaan ka yar bedelnaba laga yaabo inaan dhiib ogeyn laakiin anaga waan dadaalnay ma sha Allah xogaa isbedel fara badan ma arkaynaa xafladaha horan dumarka bas baa maanta moogtahay ragga lama arki jirin marka maanta waxaan arkayaa ta gadaal markaan fiiriyo ku Abubakar Cabdalla jooga marka رجوع عليا وعمر حتى وقت أنا مدرسي وحاس وعادة بقولها لو عسل ما لا مركا ما شاء الله أنت سوا كفتم وعن رأينا ما هدو عليه يقول لي إنه معركة الجوال مع الروح يا مع العاب يا وزير ده أبغى أنا ما صنت هاي حاولنا مركي الوضع هاي أو مدرسة أنا معنا وهرتا شيخ مصطفى أولاً شيخ اللي هجري معركته إنه قف إنه واحد كوسيو إنه يكون قدري وتمهم سنة ها إنه واحد كوسيو أما إنه قدري معناها أو إنه يكون قدري شو قبل أن حاله هجري هرتا واحد اسمه قصر معها وأعرف ربنا أويرا جرتها ما دام مدرسة مثلاً كنت له حنا معركته ما دام أنا قف عن أد سكول لون هاي ومعركته جور ولا شيء يقولون وأنا أد حشمية إلا وحيت راضي maaragtay waan tagi oo masalaani madrasada dil xiri waan raaci marka insha Allah ta'ala u duceeyo khayr ilaahay siiyo marka intaas wax gal oo wax weyn ah waxa kale oo asna maaragtay oo safar oo jiray speaker-ga oo aad u qasbe aan ku dhahay maaragtay xafladan masalaani dhalinyarada waxaan rabnaa inaan garab istaagno aan dhiirigelino aan moral siino arkaan inay maaragtay dadkooda ama dawladda ay leeyihiin inay garab taagan yihiin waqti walba ناكلوا جري وكسوت تجي شلون يحول جري محل جري مالندي حتى حافظ اسمه آدم وكسوت جوي معركة نيروبي مركوسان وما ذا وسوم هذا حتى حافظ مرة حتى مركا سبيكر آدم ما سنت هاي وأنا آد ساحبنا هاي مركا عن كل هاي نياه إلى المعركة مش أي رعدو حافظ ما آديسيت مركا شقاش إن شاء الله تعالى نكنا معركة الدعين يسين وحيد الله هاي وأسكوكتين وحل culays kiisa iska far badan waxyaalo qaar waxa jirta maaragta aan ugu cambaareenaysiin oo laga yaabo inaan tawar u haynin marka ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu maaragta noo fududeeyo speaker aad u maasan tahay ardayda waxaan rabaa insha Allah ta'ala waqti salaada la joogaa inaan harkeeyo horta waxbarashada in lagu dadaalo adduun iyo aakhira dadka wax saaciidinayo waa waxbarashada diiniga ah tiimaadiga marka laga soo tago waxaan niga codsanay sidaad meeshan hadda maanta ugu qalan jabiseen inaan meel walbana ugu qalan jabisin waxbarashada yaa meeshan lagu istaajinin waalidiinta haddaan soo laabto horta investmentka ama maaragtay wax xoogga ama aqliga ama maalka la geliyo adduunkan hadda la joogo waa caruurtaada haday ka halawdo ama aad maaragtay si fiican wax u bari wayso waxa way qasaarta intaas kugu filan haddaad gabar dhashay haddaad wiil dhashay isku mid way hadda gabadhan wasiirada
countiga dhan baa wasiir u tahay haddii si fiican lagu soo barbaarin oo wax la soo barin oo tarbiya la soo siinin meeshan ma joog lahayd ya soo saas maaha hadda waxaa waaye oo dadka hadda waxaa maaragtay waxaan dhihi rabay maaragtay madrasadan waxa loo dhiso hadday waxay niyada kusoo dhacday ilaahay khayr siiyay waxaa waaye xaawadegan aan la joogtaa oo governor zaid ugu dhow soo bacay aniga ma is saadan culays fara badan marka maxay intaas ku gaartay tarbiya iyo diinta hadda waad arkaysiin say u labisan tahay horta si fiican fiiriya ma arkaysiin ya ma intaas maxay ku gaartay tarbiyada caruurta waa shay muhiim ah caruurta hala tarbiyeeyo diinta hala baro waxaa kale waxbarasho meeshan ilmaha hadda waa yariiriin waxaan u malayn 15 sano wixii gaaray meeshan waa yariiriin laakiin haddii inta meeshan lagu qala jabiyo qabtan lagu dhaafo maxay tari faa'iido miya waxbarashada hala sii wado haddii primary ama high school bogtiin hala aado maxaa la dhihi jiray ibtidaa'i icdaadi thanawi ilaa jaamacad hala aado waxbarashada lagu dadaalo luqadan carabiga hadda waxa laga yaabaa inay niilo fududahay laakiin meel qaar marka la tago ana waxaan arkay hadda ka hor dal meeshan aan aado khadar marka arwaa iska yarfaay Sheikh Ahmed ay soo akhriyay waxa la jiray koow aan soo socday kale wuxuu dhir rabay chapati iyo shaygan waxa ka wuxuu eegana xadanta ku qas ana aan dhaneeyo dhageyso bariga madrasa ana ma ku diidan barato ana waalidkay soo bar wax aan ku tafsiirahay ilaahay unta ma jirto adi meedaaro chapati insha Allah keeno marka muhiimadu leeyahay horta luqada carabiga waxa waaye qofkii oo meel kale aaday ama maaragtay shaqo meel kale u raadsaday garan waxbarashada lagu dadaalo caruurta nin walba mas'uula ka saaran ama hooyo ha ahaato ama aabaha ha ahaado hadda ilmaha la leeyahay muqaddaraad la isticmaala magaalada cunuga muqaddaraad magaalada ku isticmaalaya soo waalid ma dhalan ya waxaad ogaataa wiilka ama maaragtay gabadha waxyaalaha xusubinayso adi inay mas'uul ka saaran tahay mas'uul inay ka saaran tahay haddii aad tarbiyadooda aad ka gaabiso ilaahay subxaanahu wa ta'aala waa lagu weydiin waa mas'uuliyad tan had anaga na saaran iyo tii iniga ni saaran waxay ku kala duwan yihiin xitaa ma jirtaba ilaahay hortiisa waa lagu weydiin toban cunug ka dhashay tarbiyan wayse ilaahay subxaanahu wa ta'aala soo kuma weydiinay ya marka waxbarashada lagu dadaalo anaga waa ni garab taaganahay insha Allah ta'ala anaga waa ni garab taaganahay waxaan u maleynaa madrasada Furqaan Sheikh Faarax waxaan isla joognay Sheikh Cabdiraxmaan odaygan qadar joogo wuxuu dhahay madrasada Furqaan waxay maraysaa stage-kii oo ilmaha jaamacadda laga aqbalay stage-ka final stage so ilmaha markay meeshan ka dhameeyaan jaamacad Sacuudiga direct u aadi karaan marka haddii siraajana waxaan maleynaa ardayda wuxuu ku jiraa oo jaamacada Madiina ma sha Allah marka anina waan daba raacaynaa insha Allah ta'ala abdi damasho ma speaker uu fadhiya MP baa jira madax kale baa jirta haddii oo al-Furqaan loo helo sidii najaah inay ardayda maaragtay jaamacadda aadi karaan masalaan inagu joogtiin iyo passport inta gaajisina kabtanka tikirtin waxbarashadana muhiim waaye 93 cunug hada waxbarasho soo dhameysay oo diini ah magaalada bedelmayso ma ya marka khayr Ilaahay siiyo Ilaahay barakeeyo Ramadaan baa lagu jiraa halis garab istaago nin walba jiraankiisa ka warhayo dad fara badan oo jira iska daroofeysan waxa waaye macnaha madaxda hatta hadii wax walba la keeno dadka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ma deeqi kara Soomaa baahida dadka lama koobi karo Soomaa ya marka halis ogaado halis ka warhayo waxyaalo fara badan oo laga hadaba jirta mushkilad fara badan oo iska jirtaa oo maaragtay ama biyaha ahaato waan ka warhaynaa biyaha ana ahaan maaragtay waxa waaye county government yani biyaha ay hoos maadan wixii dadaal aan subin karnay macnaha u maleeyna inaan ka jiifno laakiin xoogaa maamul xumo baa iska jirta oo maaragtay annaga dhaxdayn oo samoodelka dad meesha ka shaqeynaya taasna si ugu dhaqsiban insha Allah ta'ala wax laga qabanay hadda biyo masalan la dhigi karo masalan biyo la'aan hadda in the next 3 bilood ama 2 bilood sababtoo ah haddii 4 taangi oo cusub lagu soo kordhiyo magaalada biyihii wabiga laga soo pamgareynay meeshii laga soo pamgareynay biyo yar oo hadda la dhahay marka intaas oo bam ay biyo soo pamgareynay magaaladii maamul xumo oo si ay biyo la'aan ku ahaan karto ma jirto marka insha Allah ta'ala la isku samro tan steamerka waan ognahay waan ka warhaynaa boolay badan oo waxa jirta steamer qabin I think hadda waxaan u maleynaa sanadkan dhacdiisa ugu dhaqso badan steamer waa la keen rabaa steamer waxa laga cawday maaragtay laga sheegtay inuu mar walba tago markuu roob tif dhaho هذا عن أملنا دقي قالك وعن أملنا دي الصباح يسهر ما وجرت وهذه أنا هستوى هذا عن أملنا كوس دولة السرع يا أحر سر الرماس وأنا لا يحلني إن شاء الله تعالى استيم الضنب بل تجستي سنفرها بأن إنه هتبل الدول سدح جرتجي إنه بهاتلس هالمرة تقويجي وحد ذلك إن شاء الله تعالى أنا وموجودين وحد شيء قش أي مارك تكهلين مدرسة اسمه ذا
horta madrasada macad ha ugu yeerina sababtoo ah madrasadani furqaan waxay ku kala yihiin ma jirto xataa haddii kun shilin iska qaadi waa iska rusuumu daraasigi yaraa oo maaragtay oo madrasa lagu wadi lahaa saas macad kuma noqonayso waa madrasa islaami ah oo public ah oo masalaan ku taalo oo ardayda wax ku barato soma marka wax dad weydiinaysiin hadheena macnaha macad tibyaan ee islaami ma waa madrasa iska caadi ah anna insha Allah ta'ala wixii xarbi ah ama wixii dadaal insha Allah ta'ala waan muujinaynaa hadda speaker uu sheegay waxaan ku dhahay speaker madrasadan wasiiradna waa joogtay bal governaga haduu ilaahay wax naga soo qaado insha Allah ta'ala aan u tagno aan kuna bal governor waxa jirta madrasa masalan ku taalo intaas oo arday ah wax barto waxaan rabnaa wixii support oo siin karto anagana leaders ka samoodo bal waxaan iska qaadi karno insha Allah ta'ala oo dadaal ah intaan muujino aan maaragtay waxaan ka qayb qaadan karno ka qayb qaadano marka insha Allah ta'ala waan dadaalina dadaalkiina meeshan iyo ku ekaarin hala dadaalo waxbarashada lagu dadaalo waxbarashada madrasada kale ma wali iskuulkana lagu dadaalo hamiyaysta focus lahada focus oo magazin ya macnaha wixii ka horeeyo fiiri masalan dhaxtaynina adduun masalan kale ma aha soo saasma maqlaysa muxuu ahay magaciis sheekh Abdurrahman adduunka masalan bis ma aha waxaad ku hamisiin inaad sheekh noqoto inaad doctor noqoto inaad magister qaadato inaad dhakhtar noqotid inaad engineer noqotid hadda fiiri aniga Sheikh Ahmed maxaa la jiray oo soo akhriyay maxaa la jiray madrasa alxamdulillah tawxiidan soo maray furqaantaas soo maray tamaa soo maray najaaxa ka dhameeyay alxamdulillah qasaartana kuma qabin soo saas maaha nin walba iniga kamid ah waxa waaye xitaa ardayga madrasada soo maro iyo waxbarashada quraanka xitaa jaamacad markii la tago ardayaash kale waxa isku mid maaha kan madrasada iyo quraanka iyo dugsiga soo maray waa nin degan oo diin iyo akhlaaq iyo asluub qabo oo diintiisana garan waqtigiisana tukani laakiin kan diinta iyo madrasada iyo maaragta quraanka lagu soo barbaarin waxa waaye ad jaamacadaha kale ama dhan Kenya ku yeelan jaamacadaha meel kale ku yeelan ani xaqan soo maray waa meel iska fasaxad badan laakiin ardayga hadduu soo maray maaragta diin uu leeyahay waa wuxuu noqonayaa nin degan ama gabar degan waxa waaye wax walba fudeed kuma galay laakiin hadduu diin madrasada waxa la farbadan lagu akhristaa manhaj iyo suluuk waxa loo jirtaa oo maaragta muxuu ahay manhaj af Soomaali waxa lagu dhahay manhaj ya طريقها wadada toosan waxa la xadiida jirta fiqh jirta nolosha arabtan waxa laga yaabaa odayaal far badan meeshan fadhiyaan inay maaragtay waxay garanayaan wax ka badan garanayaan laga yaabaa marka ardayda loo dadaalo hala dhiirigeliyo sheekh insha Allah ta'ala wixii hataa oo rusuum daraasiga yar oo haysanin oo na rabo in wax barto insha Allah ta'ala waxaan naga codsanay inaad maaragtay u fududeysin marka aad u maasantiin aad u faraxsanahay anaga waxa kii loo magaalada nadaafad xumo fara badan baa jirta meel walba oo la maro bacba taala waxa way magaalada dadkii lahaa haduna oo maaragtay nadaafadeeda oo badan kala heen yaa nadiifini ya nin walba dukaan uu leeyahay bujur buu leeyahay geedihii bujurkii lagu qalay oo hilibka lagu jarjaranay yaa lagu dhaxtuuray meeshii drainage systemki haye bacba meel walba taala aw amir mujawa mumaad amir bacba meel walba taala marka haday markaan soo galay magaalada dad kale had martii haday imaadaan waa yaabayn war nin walba oo dukaan haysto bal inta hortiisa kali nadiifiyo ha iska xaaqo hada municipality insha Allah ta'ala rajayn baan kaleenahay waxa la rabaa in jid la hagaajiyo laamiga gudaha magaalada in la hagaajiyo drainage in la hagaajiyo bal inta yar oo suuqa laga rari oo maaragta gaanjo iyo maaragta qoladan muxuu ahay revenue collects laga keeni magaalada nadaafadeeda lagu dadaalo nin walba qashin waxaan oo hadii oo bacashan igala xiro la dhaho wax bac magaalada loo arkaro ma jirno dadka way calacalayn marka nadaafadii magaalada lagu dadaalo aad u maasantiin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh وردت كل الطيور وزهت دنيا الحضور ثم قالت للحضور مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا أهلا وسهلا صحبة كنتم وأهلا ولنقل للجهل مهلا
ذاك حفل الناجحين، ذاك حفل الناجحين. ألف مليون مبارك، ربنا زدهم وبارك، كلكم في المجد شارك. نعم أجر العاملين، نعم أجر العاملين. وردت كل الطيور وزهت دنيا الحبور، ثم قالت للحضور مرحبا بالحضور.